wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay soo saartay go'aano ku saabsan dhinaca waxbarashada lagana hortagayo cudurka coronavirus. war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliya Xildhibaan Cabdullaahi Goodax Barre ayaa lagu shaaciyay qodobo ay ka mid yihiin in la joojiyay bixinta casharada dugsiyada sare ee sanad dugsiyeedka 2020-2019. sidoo kale wasaaraddu waxa ay sheegtay in ardada lagu qiimeyn doono halkii ay casharadu u marayeen xilligii lagu dhawaaqayay xiritaanka iskuulada oo ku beegneed 19 Maarch 2020. ardayda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan sida ka warqabtaan cudurka COVID-19 saameyn aad u weyn ayuu adduunka oo dhan ku yeeshay, annagana kama duwanin. khaasatan bahda waxbarashada ee dalka Soomaaliya saameyn aad u ballaaran ayuu nagu yeeshay. waxaad la socotaan iskuulaadku hadda muddo 20 cishaa ay xiran yihiin. ujeedada iskuulaadku xirraayeen waxay ahayd in cudurka faafkiisa inta uusan soo gaarinba laga tawaashaysto oo sida takhaatiirta adduunka ay noo sheegeen waxa u horeeyo hadda lagula dagaalamo uu yahay in muxuu ahaa foojignaantana la kordhiyo, muxuu ahaa kala fogaanta dadkuna aada loogu dadaalo. taas ayaa waxaa keentay bishii hadda lasoo dhaafay 19keeda laga soo bilaabo in iskuulaadkii xirraayeen. waxaad la socotaan in aan ku jirno waktigii sanad dugsiyeedku uu gabagabada joogay oo dhamaadka ahaa. marka hadday marsaa tahay in waxaad sanad dugsiyeedku qaabku ku dhammaanayo ay ardayda iyo waalidiinta iyo macallimiinta iyo maamulada dugsiyada iyo dalladaha dhammaan ay u caddahay waa habboon tahay. sidoo kale mar haddaan la ogeyn inta ay qaadanayso in muxuu ahaa cudurkan la dagaalankiisu adduunka ku qaadanaysa, mar haddaan la ogeyn in aan ka tashanno waxa laga yeelayo sanadka soo socda iyadana waa dow. wasaaradda waxbarashada iyadoo waxaasoo dhan muxuu ahaa tixgelinayso wadatashi ballaaranna la samaysay dalladaha iyo maamul goboleedyada, waxa ay soo jeedinaysaa marka hore in sanad dugsiyeedkii 2019-2020 lasoo afjaro iyadoo lagu salaynayo qiimeynta ardadu lagu qiimeeyey wixii ka horeeyey 19 Maarso sanadkan. arday walba wixii markaa qiimeyntii maalintaa uu joogay in lagu qiimeeyo sanadka dambane loo diyaar garoobo sanad dugsiyeedkii sanadkan 19-20 oo halkaa ku dhammaado. wasaaraddu waxay tilmaamaysaa in macallimiinta, maamulada dugsiyada iyo dalladaha ay bilaabaan maalinta beriya wixii ka bilowdo in la qiimeeyo ardaydii, laguna qiimeeyo maalintii iskuulka la xiray meeshii la joogay oo ahayd 19 bishii Maarso sanadkan. arday walba qiimihii markaa uu helay uu ugu gudbo sanadka soo socda haddii eebbe idmo sanad dugsiyeedka 20-21 ah. waxaa isweydiin leh maxaa laga yeelayaa imtixaankii shahaadiga ahaa, khaasatan dugsiga sare imtixaankii looga baxayay fasalka 12aad. wasaaraddu markay la tashi samaysay waxa ay go'aamisay in aan ka sii dhur sugno muddo kooban
kadibna go-aan kale laga gaaro.